السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفتيga mudan qiimaha badan qadarinta mudan waxaan leeyahay meel walba dunida ka joogtaan salaan kalilaab ka soo go'day ayaan hawada in soo mariyay saa ii jeceshiin ayaan in jeclahay. I love you so much ayaan leeyahay asxaabtayda qaaliga sidoo kale xaajigeygana asagana waxaan u sii dirayaa salaan kalilaabtayda ka soo go'day. waxaan in wadaa nin naagtiisa ma dhimataa ma jirataa waa maya laakiin naag ninkeeda wuu jiradaa. marka taase waxay tahay lisweydiinayaa naagta ninkeeda markuu jirado maanta way kurboonaysaa. ninkii maanta hadduu sirrta kusoo laabto 20 sano hadduu u jiifo hadduu 1 sano jiifo iyo haddii bil u jiifo hadduu maalmo jiifo naagtaas ninkeeda wuu jiran yahay. laakiin ninkan naagtiisa ma jiranayso adi unbaa isku jiranaayo. marka walaalahayga qaaliga ninka naagtiisa ma jiranaayo mana waalanayso mana dhimanayso. fahanteen taasaa iga dardaaran aniga. maxaa yeelay ninkaa maanta waa isku wareerisay. waxaan arkaa gabdho walaalahayga mar walbo ninka wuxuu dhahaa intee mare yuu la socde meeqa saca hadduu imaado saacan maxaa waaye maxaa shaqo asagoo shaqo waa shaqaan aadaa uu ku dheh shaqo hadduu aadayo shaqadiisa ha aado. laakiin adiga inaa wacdid haa shaqadii ma aade haye shaqadii maxaa haysaa haye intee martay ma ka soo tagtay maxaa waxaasaas ku wareerin walaalahayga qaaliga. taasaa in kula talinayaa ninka lama kontroolo ninkaaga ha kontroolin. ninka markaad kontroolsid wuxuu iska dhigayaa wax weyn. ma fahantay horta naag walba ninkeeda ayadaa qaymo u yeelato hase ahaatee aniga qaymo indhahayo ninkiina qaymaha ka qaaday ma dhahayo. laakiin walaalahayga soomaaliyeed oo gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxaan kala talinayaa. gabdho badana waxaan arkaan hadda qisadan waxaan ku keenay gabaraan ku keenay. gabadhii waxay ahayd ninkaanayta wayb israacisiba. ninkaana marka naagtaan markay israacisu arkay wuxuu rabo ka samaysanaa. maanta dhan waxay leedahay telefoon kusuu soo baxo shaqo u aadaa uu dhahaa. shaqo markuu aado dhaha uu soo baxo waa kasoo daba bixi meeluu maraan fiirin ay leedahay waa daba socotaa shaqadii u aadaya ma aadino waa kasoo noqotay gurigeeda imaaday. guriga markay imaado may joogi jirin guriga wax yar ka bacdadan waa bixi waa dhudhuuman meesha shaqaday tegaysaa waa fiirinaysaa inuu joogay soo fiirinaysaa. hadduu joogin telefoon oo dirta waryaa shaqada ma joogtid anaa imaaday intaa jirtaa dadkii dhexdooda ninkii wuxuu dhahay aniga naagtan aniga maxay ii kontrooshaa. maalimaa ka mid ayadoo daba socoto nin saaxiibkiisa arkay ay ka daba gamgabanaysa ee daba socoto. nimanka hadda jooga wax ma kala qabsaan mogtahay see u socotay shaqadii markuu galay ee soo laabtay ninkii arkay saaxiibkiisa ahaa. gabadhii nusha isku dhahday markuu gudaha gal waryaa maxaa adi gabadha kusoo daba ordaysa maxaad aad ooga soo tagtay waay maxaa ku samaysay waa waryaa gabar see waay xaaskaagan maxaa waa kusoo daba socday ilaa intay kula soo gashee gabadha waxay gudaha kula soo geli laheed ani markay aragtay iga naxdee seeba maxaa jira waay war walaalo ani ayda nabadaa kusoo kala tagnay waay war sugba telefoon u diri waryaa maxaa iisoo daba socotay waay maxaa dhibka jir maxaa waay adigaa koonayaasha inaa maraysid aan fiirinayo oo koonayaasha adig maa ii tilmaamaa waay. ninkii wuu fikiray maalinka dambe haddana waa imaaday meeshii imaaday haddana shaqada mar walba way kusoo wareegayso waa fiirinayso inuu baxayn kala. ninkan shaqou leeyahay waa bixi karaa shaqada inuu ka baxo uu meel loo diri karaa waa qof shaqaynayo waay. hadduu tiisi ay tahay iyo haddii shaqaale uu ku yahayba inaa kontroolshimaan waa baxa banaanka uu aadaa danuu soo oofsanayaa. haddaad ka daba qaadid kabar way imaaday maalimaha ka mid way weysay haday weysay nimankay imaaday aaway dhahday dhowr jeer ay imaadaa alday. marka naagtaan dhowr jeer markay imaaday ay weysay telefoon u dirayso waryaa ay leedahay maalinka dambe aday naagtaan maxaa niman waa aragtay way sheekaystaan bis ninkan wuxuu isdhahay naagtaan aniga horta waxayba anigooba maanta naag u jeedin ee igaga daba qaadanaysa aniga ii ilaalinaysa ina iyada ilaalismay moodaa waay naagaha iga ilaaliso waay.
ninkaas horta hanti maba lahaynba ma fahantay markii dambe ilaaha hanta uu siiyey bilahaas dhan uu iska dulqaadanaya wuu arki jiray stress ilan stresskaas dhan ba aydaa gelisay wuxuu la stressay ilaahow lacag isii naagtaan naag kalaan ku guursado wuu la stressay waayo naagtaan haddii naaga la guursan lahaa goormayba aniga ii ceebayn lahayd oo iga daw imaan lahayd oo idhihi lahayd waryaante waa shaqada waa laga soo baxay goorma imaane waryaa shaqa ma joogtid subaxii markaan baxo goorma iga soo dabageli lahayd oo dhe goorma iga soo dabageli lahayd oo dhe ilaahow lacag isii u dhihi jira alla ilaahow lacag isii sidaas eed ilaahay alxamdulilah meelu ma waxaa lacag u helay hanti u helay hantida markuu helay hantidiina iyada looga raaxay la rababa ninkii wuxuu ilaahay ugu tuuganaya inuu naag kale aan ku guursado ma fahantay ayada ninkii way israacinaysin naagti waa orday ninkii naagu guursaday naag markuu guursaday waaba ku dhufatay way waalatay gabadhi way waalatay gurigeed ma lagu hayaday waalatay wuu waday guriga hooyadeed asxaan uu sameeyey guriga hooyadeed u geeyey ma fahantay markii guriga hooyadeed u geeyey tii sooma waalanin tii naag kale markuu guursaday waalatay mogta muxuu dhahay aniga naag guursay bis hadday waalatay yaa haddaa mid saddexaad ku daraa u dhe u sheeg u dhe nin naagtiis ma waalatay mid kale uu ka dabageeyey naagti kale wuxuu ku dhahay adiga haddaa iswareerisid waa kaasaa ani naagtaas dartaa ay u waalatay adna soomaan kinifkif hadday naag kalaan kaa daba keenu dhe ani nin dib dambaba naag inay ani ii stress ma marabo marka walaalay markaasaa le walaalow naagta dartaada ay kuu jecleed ay ku daba socotay ay ku ilaalsinaysay yah maxaa jira aniga wuxuu dhe ayada maa idhashuu dheni saddexaamana keentee waa naag nin dhan oo loo dhalay waayo 8 caruur waayo saas dhahaayo nin dhan oo 8 cunug loo dhalay saas dhahaayo marka naagtaasayta sidii ilaa hadda way xirxiran tahay naagtaas ma ninkii hadda waalan misena ayada hadda waalan aan in weydiiyey hadda naagtaas yay ka waalatay ilmaheeday ka waalatay reerkooday ka waalatay ma fahantay hadda la joogo ilmahaaga abaayo haddaad dhimanaysid geeridu waa xaq xanuunnu ilaahaa keenaa laakiin xanuun qof dartiisa yuu kugu imaanin stress inaad isgelisid buuqa isgelisid ya maxaa walaalay ninkaas nin naagtiis mauna waalato mana dhimato ma fahantay mana jirto maxaa sariir birtiisa ugu koraysaa ninkaada inuu ku qadariyo ma rabtaa ya walaahi wiilashaan soomaaliyeed jaceelka 100% waaye inuu taxgelinaayo wax taxgelinaayo 10% taxgelinaayo wiilasheena soomaaliyeed naagaha jiriday 100% jiriday xanuunka adi dartaada ugu dhacday 10 waayo 100% waa 10 marka maxaan isku wareerinaynaa ya ilmahaada guriga subaxii shaqo ma laga taga haye mac salaamo xabiibkii quraacdiisa wanaagsan si hadal macaan ku soo sugooti ka damba adiga gurigaaga shaqadaada qabso ha wareerin gurigaaga ka shaqayso ilmahaada waxood u karkarso ilmahaada u nadiifiso gurigaaga nadiifiso ma fahantay haddaada shaqadaada xilli hore aad bogatidna ilmahaada revision u hagaaji hadday iskuul waxbarasho gaareen haddaysan waxbarasho gaarina waxaa saarataa ilmahaaga mashquuli kaatuunkooda waxooda ku mashquulis misena tvgaaga iskaga mashquul misena qur-aankaada iska akhriso iska dhegayso waqtigaaga misena iska seexo iska naso haye hadduu ku soo waco uu ku soo waco arag intuu shaqada ku jiro hadduu ku soo wicinna waaba khayr hadduu ku soo wacina waa khayr gurigaagaa fadhisaa xilliyaduu soo dhow yahay gurigaaga iska hagaajiso iska nadiifi ma fahanta ilmahaada iskaga labiso fadhigaaga iska hagaajiso casiridiis ma isugu diyaari ninkaasayta galabkii markuu imaado qalbi furan gacmo furan ku soo dhaweey casirihiisi wixiisi dhig assalaamu calaykum hadduu ku dhaho wacalaykum salaam qaali ma fiican tahay caafimaadka hadduu ku waraysiga ka qaata adoo haddaad adiga aad xanaqsaneed oo wax u dirsato wixii uu kuu keenin maxaa waxay uu keenaysaa dhihin timesi dantiisa ha dhamaysto ha casirihiisaa cuno musqushiisaa gala ha qabaysto ha nasto asigaaba ku imaanayo kuu sheekaynayo kaa faraxsiinayo
ninkaasayta gurigaas farxadda uu ka helaayo qadirinta uu ka helaayo asaa galab walba meelaha banaamaha aadaynin asigaanba kaa sugaynin intee jirtaa inteed ka dhacda intee imaada time waa ka soo baxda timekii waa waxaasayta intee u socotaa ha ku imaado asagoo markaas imaado ku dhaha meelaan u socdaa meel maa u socotaa haye ilaaha nabada kugu soo aruuriyo intee u socotaaha maxaa dooni xilligaan hadhiin habeen 5 saacaad ugu dhawaa baxayaan aye ilaaha kusoo nabad aruuri meesha u socota nabad allah kuu geeyo ninkaas bal aragba aadna kurba kuma hayso asna naagtaasay ma dhahay naagtaanay ujeedaa waa ku qadirinaysaa meel lagaa qadirinayo stress kurba aan lahayn ayaa ujeedaaye meel kurba leh maxaa ka doonayus dhahayaa ma fahantay asaa banaamaha wareegayninba saacadiisa timekiisa day dhamaato asaa soo ordaa imaanayo habeenkiina markaas hadduu dan u baxaayo ma ahane hadduu dan aan lahaynba ilmihiisi iyo adi ilmihiisii xaaskiisa laba dhexdooda unbuu ku jiraa meel kale kaa aadayo ilaahay abuurtay ma lahan laakiin haddaad ka daba qaadatidoo inteed ka baxday intee ka dhacday kan haddaa dhacdo wadaa u furtay asagana wadaa u furtay adna stressaas u keentay madax xanuun waa kana dhiig furan waa kana madax maskaxda dhiig maxaa iskaga furay maxaad u waalani ma fahantay murugo adi unbay kuu taashaa la iska mooreeri laakiin naag saa u nahno ninkeena waa gadgadisanaynaa nin kale ma raadinayso ninkeyga iga xanuunsanay ku dhaysaa meel ma aadayso waa la korboonaysaa bii kama degaan ma fahantay ninkaasay cunadiisa sii u qabeey u labis ka guriga ka uumi ya sariirta ka barfuun ka mari yaa laga dareemin odigaaga maanta dhan daawooyinkiisii way ka kor calool jilac anaga naaga saa u naana waa calool jilacana ma fahanta markuu kuu soo saxda murugaa ku haysaa laakiin asaga murugtaas ma hayso naagtiis ma jirto marka maxaad u sujirisiini dartiisa jiri ilaahay korkiisa jiri ilaahay xaggiis kaaga imaaday waa la gartay laakiin jiri xag ilaahay kaaga imaanin asaga dartiisa walaalahayga qaaliga ah sharafta iga mudan waxaa iga dardaarnaa nin dartiisi aad u xanuunsanina gabadhaas hadda walaasheena ilmaheedu maanta way rafaasan yihiin ma fahantee ilmaheedu way rafaasan yihiin ilmaheedu waxaa haayo naag kala hayso eedda arxanley eedda aabbaha qabo hooyo kuuma noqoto eeddadii hayso ilmaheeda maanta say u egiin ilaaha og markay ilmaheeda haysatina say ahaayeen maanta say yihiinna isma lahana marka waa laga fiican inaan isku warwareerino marka walaalahayga nimanka hadda joogo liskuma wareeriyo wareer waa loo waabaristaa soo ma la dhihi jirinoo markaa isku wareerinin ma fahantay hadduu adigana gacantaa soo gala aragtid ha kee gareenin laakiin markuu gurigaa ku jiro qadari qaymo u yeel sharaf u yeel ma fahantay markuu kaa maqan yahay adoo odigaaga jecel oo sharaf u yeelaysid oo qiimaynaysid oo qadarinaysid ma fahantay ayaad gurigaaga ku sugaysaa intee jirti hadduu ku dhaa maanta isku soo waco ilmihii ka baran waa fiicana xabiibkii dhib hataa hadduu ku haysto markaasayta dhib aad ka fakan karin aad tahay wax aad xalsan karta haddaad tahay looma wacdo dhib aad xalsan karin haa markaas ina wacdo baybi aniga dhibkaana haysto wixiina waa kana ogow walaalahayga qaaliga meel walba aad joogtaan taasaa in kala dardaaran maan dardaartaydu waa taas nimanka lama daba kaco inteed martay yaa wacday teleefoomahooda aad babaaraysaan iska dhaafo teleefoomaha ka dawacaysaan intee shaqadan xilliga waa kasoo baxdee kan aad ku haysaan iska dhaafo teleefoonkiis ha baarin yaa ku soo wacday yaa wactay waxaas iska dhaaf keeleesaa la iska dhigaa ma fahanteen taasaa in kula talinayaa dadkii horaan ila joogay dadkii igu cusub waxaan leeyahay Micaad channel subscribe ii saar like-na saar commentina kasoo bixi dadkii horaan ila joogayna adinkana aad iyo aad ay u mahadsantiin mar walba saa ii soo dhiirigelisaan
aad iisoo sharaftaan aad iisoo qiimaysaan kommenti qurux bay iga soo bixisaan ajri xasanaad allah in ka siiya in leeyahay meel walba aad dunida ka joogtaan dadka nagu cusubna soo dhawaada channelku waa channelkiina waa Uma Macad channel waa adduun weyn